Bismillahirrahmanirrahim. Daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan falanqeyn gaar ah oo aynu ku eegayno xiisadaha ka taagan caalamka oo dhan. Aan ku horeeyo mudaharadayaasha dawladda Iran ayaa gubay sawirada generaalkii la dilay ee Qasim Suleymani kaasi oo uu dilay Mareykanka iyo hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kumanaan mudaharadayaal ayaa iskugu soo baxay magaalada Tehran ee caasimadda Iran iyagoo aad uga careysan gantaalkii ay dawladdu ku soo riday diyaaradii 170 qof ee shicibka ahaa ay ku dhinteen. Dawladda Iran ayaa markii hore diiday inay gudbiso sanduuqa madow ee keediya xogta diyaaradda, taasi oo markii dambe ay dawladda Iran dalalka caalamka kala kulantay eedeymo ku saabsan inay diyaaraddaasi iyadu soo riday, balse markii dambe ay dawladda Iran si iskeed ah u qiratay inuu gantaal uga dhacay si khalad ah. Geesta kale, safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya magaalada Tehran ee caasimadda Iran ayaa lagu xiray dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi oo ay muwaadiniinta dalkaasi ku muujinayeen cadhadooda ku aadan diyaaradii laga lahaa dalka Ukraine ee uu ciidanka dalkooda soo riday. Xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Dominic Raab ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu caro kaga muujinayo kadib xiritaanka safiirka oo lagu magacaabo Rob Macaire iyada oo aysan xukuumadda Iran wax sharaxaad ah aysan ka bixin go'aanka ay ku xirtay safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya magaalada Tehran. Mr. Macaire ayaa lagu xiray halka uu dibadbaxu ka socday ee banaanka jaamacadda Amir Kabir barqanimadii Axadda ahayd ee saaka, ha yeeshee waa la sii daayay saacado kadib markii ay booliiska dalkan gacanta ku dhigeen. Xiisadan ayaa u muuqata xiisad dhan kala yeelatay, taasi oo ay geesta kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa si cad u tilmaamay in xaaladda ka taagan dalka Liibiya ay si weyn u saameyn doonto xasiloonida wadamada gobolka isla markaana ay liddi ku tahay dalalka Yurub. Wuxuuna hadalkan sheegay xilli uu socday shir jaraa'id oo ay si wadajir ah u qabteen hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Kulanka oo qaatay muddo ka badan 3 saacadood oo ka dhacay caasimadda Moscow ee Ruushka ayaa sidoo kale kaga hadleen xaaladaha ka jira dalalka ku yaala bariga dhexe iyo dalalka Liibiya iyagoo isku raacay inay yihiin xaalado aan la dhayalsan karin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu tilmaamay in la joogo xilligii wadahadal iyo isfahan nabadeed lagu dhameyn lahaa arrimaha Liibiya. Si taas loo meelmariyo ay tahay in caasimadda Jarmalka ee Berlin la iskugu keeno dhinacyada isku haya dalkaasi Liibiya. Dhinacyadaasi isku haya dalka Liibiya ayaa kala ah dawladda ay aqoonsan tahay beesha caalamka iyo Generaal Khalifa bin Haftar. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa si cad u tilmaantay in dawladeeda ku talagalin inay faragelin qaawan ku sameyso xaaladda Liibiya, balse ay doonayso in wadahadal lagu xaliyo dhibaatada ka taagan wadankaasi Liibiya. Geesta kale, habeennimadii xalay ahayd ayaa looga dhawaaqay gabi ahaanba Liibiya in xabad joojin ay sameeyaan qolyaha isku haya wadankaasi Liibiya, taasi oo ay la micno tahay kulankii ay wada qaateen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, kaasi oo ay isku afgarteen in xabad joojin looga dhawaaqo wadankaasi Liibiya. Xiisadihii ugu dambeeyay ee caalamka oo saxaafadda caalamka looga hadalhayay ayaa intaasi noogu eg.